haweeney 70 jir ah ilaa da'da aan dhahay 80 jir ah ayaa ku dhawaaqday inay adduunyada ku soo kordhisay qaab cusub oo loo daaweynayo indho la'aanta cudurka indhaha ku dhaco bararka indhaha waxay dhahday qaabkan waa qaabka kaliya ee adduunyada lagu daaweeyo oo aanay qaasi ah haweeney 80 jir ayaa sheegtay inay awood buuxda u leedahay inay indho la'aanta ku daaweyso qaab aan adduunka laga isticmaalin oo ah inay leefto indhaha qofka aan wax arkin sidoo kale haweeneydan ayaa ka dhawaajisay inay xitaa markii ay dhimato ay dadka u suurtageli karto inay carabkeeda goostaan sida ay dadkaas ugu daaweeyaan waxay tiri haddaa dhinto jaanis haystiina tiri carabkeyga hala jarto dadka waa lagu sii daaweyn doonaa wargeyska Mirror ayaa qoray warbixinta duqdan ka soo jeeda Bosnia ee lagu magacaabo Hafahana waxayna sheegtay inay tahay qofka kaliya ee adduunka qaabkan ku daaweeyo cudurka indho la'aanta iyo xanuunka ku dhaca indhaha muuqaalo laga soo bandhigay ayaa lagu arkayay dadka qaba xanuunka indhaha oo indhaha u fiiriyay duqdan si ay u qabato shaqada ay sheegtay inay taas u tahay sidoo kale waxay sheegtay in arrintan ka baratay haweeney hore oo noolaan jirtay oo lagu magacaabi jiray isla magaca maanta midaan loo yaqaanay Hafa waxay tiri aniga cudurkan haweeney hore ka soo bartay haweeneydaas horena waxa la dhihi jiray ma isku magaca ahayn ay tiri Hafa la dhihi jiray iyadoo la hadlaysay wargeyska ayay tiri haweeneydan aad ayaan uga xumahay macquul ma ahan in ilmahayga iga dhaxlaan arrintan sababtoo ah waxay karaahiyeysanayaan inay carabkooda ku leefaan indhaha dadka kale waxay dhahday aniga ilmahayga macquul ma ahan inay arrintan iga dhaxlaan sababtoo ah waxayba karaahiyeysanayaan oo nacayaan inay carabkooda geliyaan indhaha dadka kale sidaas darteedna waxay tiri waxaa jira dad badan oo aan awoodin inay dhakhaatiirta u tagaan way ii imaadaan waxaan indhahooda ka daawayaa tiri bararka iyo wasaqda dadka xaafadda degan waa u sheegay tiri inaan markaan dhinto kadib keedsadaan carabkeyga oo ay shaqadan ku qabsadaan ayay tiri haweeneydan ayaa sheegtay inay shaqadan si lacag la'aan ugu qabato dadka fuqarada ah ee aan shaqaysan balse waxay sheegtay inay lacag gaarayso ilaa 10 euro ka qaadayso dadka hantida leh halkii mar ay shaqadan u qabato waxay tiri dadka aan shaqaysan oo hantida ahaysan waxa lacag ka marabay tiri laakiin qofkii shaqaysto 10 euro ay dhiibayaan muuqaalkaas Cabdullaahi oo dadka qaar ma daawo karaan markay arkaan sababtoo indho oo dhacaan ay ka socdo oo jiran ay carabka gelinaysaa ay leefaysaa aniga kulleeyba waxaan kamid ah dadkii hal mar markay arkeen mar labaad aan ku ceshuway